Gabdhaheena Soomaaliyeed marka Cadaanka maxay ku arkeen sababtoo ah cadiinta ma jilacsan ay qabaan indha buluugna way leeyihiin hay misladaasas hay waxyaalo badan baa jira macnaha gabdhaha hadda xitaa ayamahan xitaa ragga Soomaaliyeed xitaa magaca loo bixiyay Faarax Hebel Faarax Minjabasto Faarax Hebel de wax weeyaan gabar walba Soomaali ahna waxay leedahay celebrity crush wax la nin cadaan ay talking seriously ani markii dhabta laga hadlan dadka cadaanka ma nabi I'm not a hater of the white race but the fact is the white man and by his nature wuxuu sameeyay meesha baytala okay he's the one who colonized the whole Africa saga gumeystay he's the one who went to Latino asa tagay asa India tagay okay so ninkaas haduu iskaga ka dhigo adiga qurxlo haduu kula noqday that's your choice yeah ninka cadaanka wuxuu yahay way ka muuqata okay okay marka waa reality and appearance qiyaamaha markuu soo dhaw waxa lagu ogaadaa reality and appearance ways diidayaan okay is different waxa aragtid iyo waxa xaqiiqadooda qofka saa aragtiya xaqiiqada labay kala tahay nin cado timo jilicsan saan dhahay blonde aragtay indha buluug qabo hadaba ordada gabar Soomaaliya yirana wuxuu yahay halabeen ka tusinaysaa inuu adeedan ku kala jarjaro sax ya hadii nacdaan ku qabana ka macabsinaya dhabtan ka hadlaya way ka tusin kartaa because by nature sidoo Ilaahay u sameeyay saas waa noocaas waa inuu wax dilo inuu wax dhaco inuu dhul qaato inuu been sheego kumisi macnaha sidaba kumisi inuu sameeyo the white man who he wants to kill he loves to kill he loves to lie he loves to take the land of other people native people so you qofkaas daa jeclaanaysa that's your choice some good white people way jiraan most of them they are like that they are okay with it caadi ku yihiin صح bina aadanka dhan masquul markay galaan number 2 aaday waxay isticmaali jireen biyo tissue in la isticmaalo sabilaab dabada in xaarka la iskaga tiro saxarada la iskaga tiro tish asabilaab so ninkaas hadii aad jeclaanaysid that's your choice ada iskale ninkaas qaado asabilaab si kasta to gurigiisa swimming pool u leeyahay biyo uga soo daadanayo wuxuu go'aansan tissue isticmaal people who think of fikra aqli leh إلى قرآن كعوس وصار لقوم يتفكرون people who think عدانه نينك عدان كوحيا وجدنا دك عدان كده محمو عدان وده محمو لكن نينك عدان كوحو كسمي دك كلته وجدنا yellow people black people brown people دبت مركلا هذا سو مركا سومالينا ما أنت دي نينك عدان كحسينا يعني واحد بلاد ما درسنا كوري بلاد قبل عاد ما قروح بدنا قبل مدو ما قروح بدنا تنا عاد قروح بدنا بنتي ميا ساسنا قاعد دعسن لكن أنت دانكو شيء يعني أحانتي عدانت كلر واي مدونا كلر واي يعني أحانتي مدو قاو تمر البيت ناكت مدو صح black beauty of course I think white beauty محلودي I think 60% of Somalia قبلها to 70 they are black but they try to hire bleacher in اسكو حضر white beauty why will Somalia girls will bleach themselves why will they love the fair skin ما حكوجرو what is there عذر باكوجرو yeah why are they destroying the melanin ubabinayan the black melanin ke lahayn God give them why to imitate the devil himself سكو إكسيان يعني كشدانك to imitate him أصل سكو إكسينا with a hook nose ولا سنك على قرنيا حمر ما أنت سنك على وقرة حمر سنك على وقرة يا حمر سنك على وقرة ما أنت علي لسه ما أنت حاولش سنك يجو هلاس جو وين حاولش سنك اللي سوقرة أنا قاعد سنك اسمي لنا أصلنا قرتي تيجي أصلنا وقرة ميا that's crazy that's bullshit صح marka runta waxay tahay we need to love ourselves accept ourselves how egnahay instead of kikaleeta footprintiga ilaahay wuxuu dhahayaa don't follow the footprint of the devil صح footprintiga devilka if devil has a footprint devil is a man
shaydaanka raadkiisa ha raacin haddii lagu dhahay shaydaan hadduu raad leeyahay shaydaan qof waa bini aadan ah qof caadi dhulka kor socdo waa you can wait ilaa qiyaamaha nin oo kii kaleeto weyn oo geesan leh sheekay dhulka ku hoos jiray that's bullshit fairy tale waxaas spooky waa dhabta daarabtay devil dhulka ku kor socdaa lagu dhahay intuu kula joogaa ba hadda anagoo hadlayna xataa he's making some policies ba hadda anagoo hadlayna he's doing his things to destroy the black family, the black unity, black people as a whole. He's doing his shit. And we're sleeping. Anagana waajifna. Okay? Maybe anaga basku maqanba. Aslayni. Madoogeena banacnaba. Ama asaga basku diriya duro. Ama asaga guursatay, the devil himself guursatay. meeqa gabdhood Soomaaliyeed nimankooda gaalaan ka saareen laakiin dadka waxay u sheekeeyaan ninkii cadaanka uu muslim waqtiga uu muslimaana oo markuu qaadanay shahaada so you betraying God, you want to betray God wana been dadka ka dhadhicinaysa ninka bullshit dadka ka dhadhicinaysa wuxuu yahay ha ahaado don't try anaga inaan ugu force gareys naga dhadhicsis ninka inuu muslim yahay why noogu sheegay adu muslim that's good for him if it's Christian that's good for him no why is she forcing to him inuu yahay dadka ugu dhadhacsiina maalin walba video ka soo duubay soo tukanayo asoo qamiis wato maanta waxaan isku raacnaa masaajidka have you seen Willie Doni biyo masaajid soo marateen oo soo duubay marateen no that's between me and God you don't have to see that. I went to church when in high school, St. John's in Tukiyala. St. John's High School, waxay leedahay kaniisada leedahay. Primary aniga, waa gali jiray. I used to go to church. And I'm a Muslim. And I'm there. School keena ku dhaxtala. Sababta u galin waxay not in akii kaleeto aaminsanahay balki school keena ku dhaxtala. But macnaheedu haddaan dhax gal ma. Imagine Salat Dhuhr al-Gari and I prayed inside the church. Dhuhr time. And I prayed inside the church. And the priest the priest came and he told me he thought I was Ethiopian in Malena. So I had Ethiopian me Somalia. Oh, Muslim. Inside the church. What are you doing? Gutagea. You said it's a house of God and you're telling me what are you doing? I came to pray and I'm praying. I could have to go inside the church. So there's bullshit. You see who creates bullshit? The sheikh, the imams, the priests, the leaders. Those are the bullshit makers. We can coexist. Okay? marka Soomaalida marka choice ka ayaas karana gabadha Soomaaliyeed cadaan ah sheegtay cidii rabtaa guursato albeena guursato waxay doontaa guursato laakiin dadkii been u sheegin isku dayin inay dhacdo ninkan muslim waaye asoona muslim lahayn sababtoo Ilaahay dheelsiinaysa Ilaahayna ma dheelsiinin nafteeda dheelsiis aan intaas aan dheelaha kaleeto aadiyaad ana as a muslim wali ogal yahay Christian woman na guursado sababtoo ogta I can marry. I can marry a believer. I can marry a Christian woman. I can marry. لكن وين الصوم مسلم؟ A Jewish woman أقول كرا. صح. لكن قبل مسلم كلام ما أقوله. صح. لا أيضا مسؤول لك نقول ياي. صارتو أنين كمركو جعل كو عورة قبل ده وحل ديه إنه سوجي تدين تيسجليو. صح. وحلو ودي ده. Okay. قبل صدق ميله وحكي فانتا سيد بني آدم كده وحكي فهم. It's like مسكح هذا. حاتك and down there صدحاس isku xiran so صدحاas duu ka qabsaday sooba taas waa xaraan Ilaahay uga dhigay Ilaahayna Ilaahay logic lahu okay wax walba Ilaahay sameeyay waxa uu sameeyay miisaan uu sameeyay cabir uu sameeyay صح and then Sheikh came and destroyed everything صح taas uu sameeyay Ilaahay wax walba cabir uu sameeyay okay sheekh laakiin asuu wixii Ilaahay kalaamka Ilaahay uu gudbiyaa dadku u sheegaa u gudbiyaa horta culimo wanaagsan jirto Ilaahay dirto culimadeena qaar صح